السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan salaamayaa inta magacayga iyo muuqaalkayga taqaana waa walaalkeen Cabdirasaaq. waxaan live-kan u soo galay inaan wax yar aan ka ifiyo ama aan idin la socodsiyo inuu maanta magaalada Gaarisa oo aan ku suganahay hadda uu joogo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. anagoo markaa og in ay jiraan arrimo dhanka siyaasadda ee waddanka Soomaaliya aad uga soo cusboonanaya baryahan dambe inaan bal idan la wadaago aragtidayda iyo waxyaabaha aan u maleynayo ama maanta uu Axmed Madoobe u umaaday magaalada Gaarisa. sidaan ognahay Jubbaland hadda ma aysan bilaabanin. Axmed Madoobe hadda lama dooran. beesha maanta uu iskugu yeerana waa beel tirsanaysay in yani xaqoodii la dudsaday ama aad loogu xaqiray maamulka Jubbaland. kaliya beesha cawliyahanna ma ahana in beelo kale fara badan ay arrinta tirsanayeen. laakiin anigu dhankaas hadda uma soo gelin. waxaan rabay inaan u sheego dadka Soomaaliyeed inaan maanta aad u faraxsanahay in ummadda Soomaaliyeed inta wax garadka ah ay maanta wada aragtay in wadankii uu ku tilaabsaday siyaasad quman iyo meel wada sax ah dhabadii saxda ahayd in cagta la saaray oo ninkii wax garad maanta uu dareemi karo. aniga shakhsiyan waxaan 6 sano ka badan la shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. waa nin aan aqaano. waxaan kaloon u bogaadinayaa aad ugu faraxsanahay sida maanta ummadda Soomaaliyeed u geliyay rajo kadib sanado ka badan 20 iyo dhowr sano ka badan in uu macnaha wadankii burbursanaa inay maanta markii ugu horeysay ummadda Soomaaliyeed ay aragto hiigsi iyo humaag dawladeed iyo hami dawladeed u galay. arrinta ayada ah oon aad ugu faraxsanahay madaxweyne Farmaajo iyo inta wadaniyiinta Soomaaliyeed ee khadadka iyo idaacadaha iyo meel walba la garab taagan dawladda hiilka oon anigana ka mid ahay. waxaan leeyahay nin walbo hasi garab istaago. marka walaalkii Axmed Madoobe iyo inta taageertaba waxaan rabaa inaan hal fariin u sheego. waxaan rabaa Axmed Madoobe haddii arrin hoose oo u dhaxaysa beelaha hoose ogaadeen ay tahay way idin la soo socodsiin doonaa iyo arrin kor haday tahay pressure korkii maanta haday tahay sidaan ognahaybo waxyaabo badan baa Kismaayo ka socdaan. dhanka hawada haday noqoto dhanka diblomaasiyadda haday noqoto dhanka ciidamada haday noqoto awoodo fara badan oo dawladda adduunkii faraha nagu hay oo nagala baxay darteed ay maanta dawlad goboleedyadu ay madax adeegi iyo dhinacii ay mareen ay ku dareemayaan darteed. waxaan leeyahay marka walaalkay inuu dawladda la shaqeeyo in uusan maxaa la dhihi jiray uuna raadin wado marka ayada caqabad ku noqon karto in dawladda Soomaaliyeed guud qarqal gelin karo ama dhibaato u keeni karo sida aan ognahay oo maanta dawlad goboleedyo qaar ka jiraan maanta inay arrintu gaarin in waxyaabaha saxda uu garanayaa waa nin siyaasi ah uu dawladda kala shaqeeyo. midna waxaan farahayaa beesha anigu aan ka soo jeedo uu maanta la shirayo. horto beesha dadka maanta aan ku arkay meesha waa dad odayaal ah waa dad beeshaas ka tirsan laakiin sidaan ogahay dad maanta siyaasaddaas u irmaan ma ahan. haddii danan oo ciidaha iyo waxay yihiin waxaan idin sheegay inay mar kale aan idin soo sheegi doono. marka waxaan idin sheegayaa in laga waantoobo wax kasta oo maanta ceeb bay ku tahay maanta Soomaali dunida idil baa indhaha lagu wada hayaa. yaa waaye qofka lugaha u gali karo ummadda Soomaaliyeed ee soo daala dhacday ee soo burburtay cidda maanta caqabad ku noqon karta ma rabo inaan anaga sabab u noqono mana yeeli karno mana arrintaas dhiirigelinayno. waxaan rabnaa inay faraan beesha anigu aan ka dhashay oo ninka ula shiraayo waa inay faraan. meesha isqabsi baa ka dhacay maanta xoogaa rag baa isu yar hadal dhaafay waxyaabaha ka dhaceen waxyaabahaas oo dhan gadaal baan ka sheegi doonaa. ganacsade iyo oday
laba iyo saddex oo aad soo magac tilmaamatay anigu ilama aha inaad wadadii laga soo galay ay tahay bahashu in la shaaciyay ahayd manna mathali karo maxaa la dhihi jiray qof hadda maanta aan caleema saarneen oo ama ganacsade ama oday cimaamad iska wato garabka ku wato ma mathali karo beel idil uma maleynayo boqor baan leenahay waxaa la leeyahay dad kala maxaa la dhihi jiray ay bulshada ku xiran tahay siyaasiyiin baan leenahay marka uma maleynayo arrimahaas inay si saxda ahayd loo wajahay cabsida ugu weyn aan qabo aan oga digayo labada dhinacban laakiin wuxuu yahay in shargareya muuqaalkan in maanta wixii mudanaha laga soo doorto Dhadhaab iyo mudanaha laga soo doorto Lagdheera oo kasoo jeeda beelaha aan sheegay iyo guddi la socdo inay hadda ka hor Kismaayo tageen in arrimo jireen oo u dhaxeeyay Jubbaland ka tirsan inay kala taliyeen Axmed Madoobe arrimihiina waxba laga qaban haddii ay siyaasad xumo ahayd iyo haddii wax ahaydba maanta waqtiga ayaa bogsiyay wax walba maanta waqtiga ayaa bogsiyay marka uma maleynayo inay arrimahaas sida ayada ah loo wajahay ay tahay hadalkaygu waan araaranayaa ha u fahmin inaan details ama gudaha u sii galo qodob uma dil istaagi raba hadda marka waxaan rabanayaa inaan dadka la socodsiiyo arrinka asaga ah oo ah inuu maanta ku sugan yahay madaxweynaha Jubbaland magaalada Gaarisa soo dhawow waan soo dhaweynaynaa waa walaalkeen waa madaxdeeni waa madaxweyneeni waa mahadsan yahay laakiin codsi baan wadanaa waxaan kuu sheegayaa maanta haddii noqoto si guud ama si gaar ahbo ama hal beel ama ogaadeen oo dhan annagu waxaan diyaar u nahay dowladda Soomaaliyeed ee tiigsatay horumarkii saxda ahaa inaan garab istaagno waxaan kugu taageersanahay oo kugu taageerinaa inaad dowladda nala garab istaagto wax walba saxan inaad marto hatta hadduu wax xun oo kharaar yahay hadduu go'aan adag yahay inaad nala qaadato ayaan anagu ku fareynaa dhammaan qof walba Soomaaliya maanta aqli qabana arrinta sharafka oo arki karaa annagu Soomaalida waxaan nahay Kenya madowga kala markaan ku dhex jirno aad baan looga tiri badan yahay waxay naga badan yihiin waa 40 milyan iyo 42 milyan yihiin baan u maleynayaa maanta sharafka anagu wuxuu ku xiran yahay Soomaaliya oo wax noqoto wadanka Soomaaliya oo wax noqdo bay sharafka anagu ku xiran yahay marka garab uma noqonayno qof walba oo isleenahay wuxuu marka ayada caqabad ku noqon karaa dowladdaas tagtay tiigsanayso meeshii saxda ahayd been idin ma sheegayo waa markii ugu horeysay hal isbuuc kaliya ayaa dhowr iyo 10 safaaradood magaalada Muqdisho laga furay waxaa la dareemay qofku damiir kale iyo qofka aan damiir kale lahayn waxaa kala baxay ninka wadaniga iyo ninka khaa'inka ah waxaa kala baxaya nin walba oo maanta Soomaalinimada ay dhab tahay iyo nin kasto been ka ahayd wax badan baa yahumaag iyo wax mugdi ku jiro Soomaali ee soo martay iyo idaacada iyo waxyaabo kale oo qof uu been war ku faafiyo maanta sida kaliisha ay oga soo saarto godadka masaska iyo waxa mariidka leh ayay siyaasi kasta oo soo saaraysa godkiisa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hadday tahay si guud iyo hadday tahay si gaar ah ku hadday aan fariinta u farayo waxaan niga codsanayaa inaan maanta sharafka adduun weynaha oo na tusay aan ay dowladdaanada tustay ee aan maanta adduunka u muuqano inuu nin walba garab istaago والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسكوسا نقدنا وحيابي كصبح دونا شركة إيوه ساعدها فود إذا كوساي وما سنتي ولكن عبد الرزاق share that video